waxaad doonaysa waan kuu yeelaya horta meel han gaadhno reer markaa carbeed bay ku soo weecatay markaabay tiri ninkan waa addoonkaygii inuu dariiqa igu qasbo igu faraxumeeyo rabee ii qabta bay tiri markaas loo qabto waa loo xidhxidhay way soo socotay baa la yidhi waxay soo gaadhay shaati albaxr badda xeebta ayay timid markaa cikrima ibn abi jahl oo halkaa doon ka fuulay oo doontii uu fuulayna baddii ayaa kacday baddii baa kacday ninkii naakuudigii doonta waday ayaa yidhi akhlisuu 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 markaasuu cikrima yidhi war ikhlaaska inaad sheegaysaan muxuu yahay markaasaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah dheh markaasuu yidhi maa harabtu ila min hada waxaaban ka soo farxayba waa kelmaddaa buu yidhi lanna carabtu zaman jaahiligii markay caafimaadka hayaan ee barwaaqada hayaan asnaamtay caabudayeen markay dhibaata ay la soo daristana ilaahay bay baryayeen waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi waidaa rakibuu fi lfulki dacwu llaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari idaa hum yushrikuun mar alle markay maaragtan maraakiibta iyo doonta ay fuulaan ee badaha dhexdooda maaragtan dabaylaha iyo baddu ay ku kacdo ilaahay bay baryada u baraxtiraan baa ilaahay yidhi ilaahay keligii bay baryaan laakiin berigii markay yimaadaane cagaha dhulka ay dhigaan ee nabad ay dareemaanna shirkigii iyo gaalnimadii bay ku noqdaan baa ilaahay yidhi dabeecaddaasi waa dabeecad basharku ay ka siman yihiin oo markay barwaaqadana bini aadamku way qooqaan maalinta bini aadamka la yar qabtana ilaahay bay kusoo ordaan waana sifadaasi waa sifo xun weeyaan ma wanaagsano qofka muuminka iyo gabadha muuminada sifada lagama rabe ogaada qofka iimaanka leh muuminka waxaa la doonayaa barwaaqada markaad haysatan ilaahay ku shukri dhibaata hadday kula soo daristana waa loo sabraa waa la adkaystaa cikrima marka dadkan ula socdan oo wada gaalo mushrikiin bay ahaayeen markuu yihi war ikhlaaskaad sheegaysaan muxuu yahay markaasaa lagu yihi war laa ilaaha illa allah dheh wuxuu yihi anigu kelmaddaa baaban ka soo baxsaday buu yihi ha kelmaddaa baad ka soo baxsatay ha deedna markabkiiba doontii baa la soo celiyey xaaskiisiibuu markaa ugu yimid oo halkaa u taagan umu xakiim radia allahu canha wuxuuhi maxaa ku keenay maxaa ku keenay markaa bay tidhi adaan kuu socdaa inaad naar ka badbaadid baan doonaya anigu dee waa lay dili lagu dili maayo waxaan kuu geynayaa muxamed calayhi salaatu wasalaam muxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulki ilaahay ayaan u tegey oon ku idhi nebi allow cikrimo ayaa kaa baxsaday in abi jahl ee nebi allow ninkaa hala nabadgeliyo uu ku nabadgeliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaana ikaa soo diray weliba nebi maxamed fikraddaad ka haysata maahayn sidaad moodayse basharka ilaahay abuuray waa shaksiga ugu dulqaad badan ugu naxariis badan ugu dhibrinta badan ugu xidhiidhinta fiican haddii la yidhahdo qaraabo iyo dad hala xidhiidhiyo waa shaksiga ugu xidhiidhinta wanaagsan hadday dulqaad noqotona waa shaksiga basharka ugu dulqaad badan hadday noqoto maaragtaane baarinimona waa shaksiga bini aadamka ugu baarisan hadday noqoto maaragtaane naxariisna khalqiga ilaahay abuuray waa ka ugu naxariis badan nebi maxamed sal alla alay slam waa u sheegtay markaa deedna way soo kaxaysay inta soo sasabtay dhexdaa markay marayeen ila waa xaaskiisiiye oo isagu wuxuu isleeyahy waad qabtaayo waa xaaskaagiiye meelaha markay dhexda marayeen buu yar tamcayo deedna markaabay ku tiri ha ii soo dhowaan wuu yaabay oo waa maxay oo hiblaayo ma tihiin ha oo ninkaagi maanan ahayn ha oo xaaskaygi waan ahay laakiin ma tihin cikrimow adigu hadda mushrik baa tahay aniguna gabadh muuminadoo muslimaan ho ima soo dhawaanaysid bay ku tidhi gabadh muminadoo muslimada ayaa nahay markaa ima soo dhowaan karaysid iimaanku qalbigooga marka uu galo cidday xidhiidhinayaanna markaaba way garanayeen cidday goynayaanna markaaba iyaku way fahmi jireen lanna kelmadan laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah shuruudeeda ayay markaaba tilqaa'iyan asxaabta nebigu ay baranayeen ay fahmayeen waxay tihi waryaa joogso islaantaadii waan ahaa hadda miyaa may hadda waxaan ahay gabadh muuminadoo muslimada adiguna nin mushrik oo gaalo baa tahay ilaa aad ka islaamaysa ima soo dhowaan karaysid markaasuu yaabay wuxuu ihi arrinkan maaragtaana ii kaa diiday iga kaa manciyey wallahi waa arrin weyn buu ku yidhi diintan islaamke ee iga kaa dhabaysa wallahi waa diin weyn buu yidhi markaabay ku tiri waliba kii qulaamkii addoonkaagii ahaabaa dariiqaa damca inuu ugu faraxumeeyo halka reerka hadda aan sii marayna buu iigu xidhan yahay tiro waa laga xidhxidhay intuu u yimiday buu qoorta ka gooyey baa la yidhi markaas cikrima markaa muunan islaamin uu dilay ninkii baa la yidhi
magaaladii nebiga u keentay calayhi salaatu wasalaam markii nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam nebigu uu soo dhoweeyey cikrima waa abijahl inankiisii weeyaan ayaana soo tashkiiliyo diinta islaamka ugu yeedhay waa zawjadiisii tacaawunka labada qof ee maaragtaan qoyska ka dhexeeya waxa ugu weyn ugu muhiimsan xiriirka ilaahay baa la rabaa marka hore inaan isku tacaawunno nin boqor ayaa jiray qasri buu dhistay qasri muddo dhan baa qasriga la dhisayay maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi waan dhammayna kaale naga guddoon jidka uu sii marayey ee qasrigiisa loo marayey aqal yaroo cariishoo buula ayaa ka dhisan cariish baa ka dhisan boqorkii baa yidhi aqalkan ayaa leh waxaa la islaam duqa ayaa leh yaslaam duqa ayaa leh wuxuu aqalkan aqalkaygu iga bahdile cagaf mariyoo qaada buu gebigiisaba buurka tuura buu salaadii duqlahayd ma joogto way timidday galabtii bay timidday meeshii waxay arkeen waddaa laga dhigay meeshii markaasay xaggan ka wareegtay way weyday aqalkeedii xagganay u wareegtay way weyday wax xataa qorye iyo wax ka hadhay way weyday askar baa u timid oo waxaa lagu yidhi ka dhaqaaq meesha eeyaa markaabay tidhi maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay maya dhulka lama rogino dhulku waa sax weeyaane xaa kaa maqan sheega baa lagu yidhi markaabay tidhi aqal cariishoo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday mad aragteen waxaa la yidhi waad war laadahay saaka waa lagu waayey boqorkii baa yimid oo yidhi aqalkaygiibu fool xumeeye qaada oo maaragtaane kala tuura deedna waa la qaado buurtaasaa laga tuuray aqalkaagii oo islaan miskiinada oo da'weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi sawdigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu anaa dulmiga iska xarimay baa ilaaha yidhi ilaaha khaaliqe ee rasaaqa ayaa ku idhi addoommahayga ma dulminayo dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeele ha isku xadgudbina baa ilaaha yidhi yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tidhi duca badan may ducaynin erayadaasay ku ducaysatay laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tiri markii xoolahayga sidaa loo galaayey aqalkayga marka buurta laga tuuraayey adu miyaanad joogin sawdigii yidhi anigaa dulmiga iska xarimay mise lay dulma adu maanad joogin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil waa muntaqim oo u arguda addoomihiisa ilaahay dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sano la dhisaayey dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana buurta uu ilaahay gadaashiisa ka tuuray lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana ummaddaasi way duntaa hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana ummaddaasi way riiq dheeraataay way barakowdaa wayna jirtaa nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi lumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba laba beerood dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaaxu dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayey uu kabaday xabadii tufaaxii markuu kabaduu calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynay uu ku yidhi beertan ma adigaa le maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonayo nin socota ayaan ahaa nusna waan ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cunay ha layga cafiyey buui nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u tegi isaga hadduu kaa cafinay isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuhi aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto
gabadha shanta arrimood ee ku sheegay leh haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd sheega way adag tahay soo maaha war nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa tan lixaadkiiba ka wada maqaya maciduu saaruu rabaad odhan lahayd maciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin oo aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaab ninkan waan guursan buu yiri ma leega cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maaha cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi haddaba mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa taqolka ku jirta way ku sugaysaa orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlay wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad isor taagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad ka ixtiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa oo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xooral cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegayo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaas uu joogsaday malaha ana qaldano qol kale ayaa soo galay maaya bay ku tiri zawjadaadii baan hay ii kale bay ku tiri markaas uu ku aabaha sidoo iigu sheegay si ka duwan bay u dhacday xantu waa xaraam bay ku tiri aabaha ya xaman waxa uu ka yiri aniga ii sheegana ku jawaabiye ma aragto iigu yiri sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiyo ma aragto weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nabi maxamed ka careysiinay ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dhikriga quraan iyo hadal annaka inagu la hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka careysiinay kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba waligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay u ka caroonayo umay adeegsan oo lugaheega kumay marin buu yiri sidaas waa bahay u jeeday si kala hamoodin bay ku tiri ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلو سكفلين اي ارزاق الله كسيي بيرتي با لا سيي gabadhii maalqabeenku u dhalayna waa loo dhisay acdam min hada bal waxa ka sii qiimo badan oo ka sii weyn ninka saalix ee waliga ahaa iyo gabadha mutiicada ahayd ee aabaheed iyo hooyadeed talada aabiyo hooye ku guureysay ee taladeeda aana ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labada qof markay isku tageen imaamul acdam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul acdam imaam nu'man bin thabit imaam xaniifa imaamka a'immadoo dhan imaamka uu ahaa ee imaam maaligna wax baray ee imaam maaligna imaam shaafici uu wax sii baray shaaficina imaam axmed uu wax sii baray imaamul a'imma baa la yiraahdaa waa imaamul fuqahaa sheekhaas ee gabadhii iyo ninka saalixa markay isku tageen waliga ilaahay cilmigiisu maanta adduunka oo dhan uu buuxiyay ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labada qof ka soo dhex saaray nimankii buqaada ahaa markii Usmaan ay rabeen inay dilaan
fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaasi warmaanaad dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa ee Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaad dilaysaan miyaanadi ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatayna uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Cusmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xasul noqdeen baa leeyahay taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu keligii buu taariikhda ku jira Cusmaan ninkaas aan ahay wadi aniga maxay iga dilaysaan war miyaan adi garanayn buu waxaan ahay mujahhizu jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday 30 kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri war aniga miyaan adi garanayn buu ninkii bi'r mauna maalintii ansaar muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysano waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'r Roma aniga keenaye nabi Allah ceel jannada ku yaala hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30 kun diinaar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqafa muslimiinta abba hadhaasada biis waa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Cusmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel il jannada ku taala ilaahay ku ballan qaado nabigu ku yiri yaa Cusmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu inta ba janno ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay buu war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonay ninka ay malaa'iktu ka xishooto wayana Cusmaan nabiga kaleey salaatu wasalaam oo jilibkiisaasi uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Cusmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin calina inantaadu qaba saddexdaaba Cusmaan ka soo horeyso maradii mad saaran jilibkee maxaad Cusmaan uga xishootaa lagu yiri miyaan ka xishoonayn buu nabigu yiri ninka malaa'ikta Ilaahay baa ka xishootay waxaan ogahay buu nabigu yiri hadaan sidii u fadhin lahaa xishoo daraadad Cusmaan ma soo galeen buu halka uu joogi lahaa buu yiri warninka dilaysan waa ninkaas yiri ninkaas aan ahay maxaad iga dilaysan aniga Ali baa u yimiday oo inamadiisi ay garab socdaan oo hubka soo qaateen ya Abu Hurayra ya Amir al-Mu'minin nimanka buqaad kugu soo dulo waa 500 oo nin magaalada Madiinana 40 kun oo nin baa joogtay han layno hanqa qabano qudhahan ka jarneen ugu fasax buu ku yiri wuxuu yiri may dhiig islaam magaalada Madiina ku daadan maaye haday aniga ay dilayaan hay dilaan haday aniga ay dilaan buu yiri aniga nabiga ay sheego igu yiri qamiiska Ilaahay ku galiyay bay damci doonaan inay ka saaraan hadaad Cusmaan oo qamiiska aad iska saartid buu nabigu yiri aniga ay arki meesida ugu qiyaamaha ila kulmi meesida beerti Abu Bakar uu nabiga albaabkeega u garaacay ya Abu Musa al-Ash'ari waha bawaabka nabiga uu ahaa u garaacay waa kuma Abu Bakar waa ku soo ijaazo qaadiyo joog nabigu uu sheegay Cusmaan Abu Bakar baa albaabka taagan soo gal ka dhabuuri albaabka oo fasax jannana u bishaare hadana Umar baa garaacay Umarna u fasax inuu soo galo jannana u bishaare hadana Cusmaan baa albaabka taagan Cusmaanna soo gal ka dhaw idan jannana u bishaare balaayo asiibi doontana u sheeg buu rasuulku yiri marka uu nabigu bishaaradii markii loo sheegay balaayo la socota wuxuu yiri Allahu musta'an marka tiibu Cusmaan xasuusiye Ali wuxuu ku yiri balaayada aniga inay qabsani doonto nabiga ii sheegay aniguna waan iska sabrayaaye aniga keligay hal ay dulo han dhinto anigu hadaan dhinto nin kale oo muslimiinta kamid oo inaga mid ah baa talada u dhiibanaysaane aniga dartay ha u dagaalaminay iska daayay buu islaamnimadu baaqi ha noqotay
la odhan maayo niman buqaada bay dileen oo madiine ku dileen la odhan maayo waxaa lagu sheekaynaya haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dowladda islaamku way baaba'daan la odhan buu yidhi marka anuhan iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dowladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeennu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto cusmaan dhiiggiisii buu u huray waayo muxuu dhiigga ugu huri waayey min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxaye islaamnimada markay wax kaa galaan baad u dhex jecloon moogta asxaabu rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga maalqabeenka diintan islaamka iyaku waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluuhu deedna cusmaan sidaasay ku dileen raggay waliba uu soomanaa maalintii la dilaayay isagoo sooman bay dileen markaasaa raggii u yimidee ugu dambaysay u yimidee wuxuu ku yidhi xaq haddaan nigu leehood anigu amiirkiinii aan ahay aqaladiina fadhiisa seeftan iska dhiga buu yidhi aniga hay difaacina waayo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abi bakar iyo cumar baan ku manaamay waxay igu yidhaahdeen cuhmaanoo maanta annagaad nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buu yidhi ma joogay adduunkan meel fiicanna waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buu yidhi aniga magacayga dhiig islaam ha ku daadanina halkiina jooga buu yidhi aqaladiina fadhiista markaad maqashaan cusmaan waa la dilayna ininku shuuraysto amiir muuminiinta u doorta buu yidhi taladu ninkay naga guya kuwan u noqon mayse aba hurayra allah raalli ka noqday ayaa yidhi markaan islaamay maalin walba markaan guriga tegeen hooyaday u tago iyadoo mushrikada weli aanan islaamin ayaan diinta islaamka u bandhigaa buu yidhi hooya iska soo islaam hooya soo islaam markaasay nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam agtayday nebiga ku aflagaadaysaa buu yidhi maalin maalmaha ka mida buu yidhi abaa hurayra ayay nebiga ka sheegtay waxaanan u adkaysan kari waayey waxaan u adkaysan karin bay nebiga ku sheegtay oo way aflagaadaysay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga u yimid buu yidhi anigoo ooyaaya markaa buu nebigu ku yidhi abaa hurayra maxaad la oysaa bal ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuul allah hooyaday mar walba diintaan u bandhigaa xaggaagaan ugu yeedhaa xagga ilaahay baan ugu yeedhaa iyaduna waa mushrikad way iska diiddaa inay soo islaamto laakiin maanta adigay maaragtaanay waxaan afkaygaa soo marin karayn bay adiga kugu sheegtee hooyaday waa hooyo way ii dhashee adiguna nebi mubaaragoo ilaahay barakeeyey baa tahee ilaahay iigu bari buuhi ilaahay inuu hooyaday ii soo hadeeyo markaa buu nebigu u duceeyey ilaahow allaahuma hdi umma abi hurayrata buu nebigu yidhi abaa hurayre hooyadii ilaahow qalbigeeda soo jeedi abaa hurayre hooyadii ilaahow qalbigeyga xagga islaamka u soo jeedi anuu ducadii nebiga bishaaraysan mustabshiran biducaa'i rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam oo yaqiinsan in ducada nebi maxamed la ii aqbalay ayaan aqalkii ku soo noqday buu yidhi waxaan maqlay buu yidhi markaa shanqadha biyahay ku qubaysanayso sawaxankii biyaha ayaan maqlay buu yidhi markaasay igu tidhi calaa rislika yaa abaa hurayra halkaa ha ii soo dhaafin halkaa iga joog waan maydhanayaa i joog markay dharkii ay xidhatay ay daricii xidhatay buu yidhi ayaan u soo galay markaasay igu tidhi shahaadateynka ii qabay igu tidhi waan islaamayaaye abaa hurayra wuxuu yidhi maalinaa ka farxad badnaa maalintaa ma jirin buu yidhi war innaka ilaahay nicmadduu ina siiyey bal ka warrama aabbahaa muslim hooyadaa muslimad awowgaa muslim hooyadaa muslimad ajdaadaan ka soo jeednoo dhan bal wax gaala ku sheega waa kaas qurumahan kale etoobiyada nala degan baad markaad waraysato waryaa magacaa mid baan bari weydiinay kuwa jabada la yidhaha jaba waa taqaanaan anu reer rabaan ahay ma ogtahay waryaa magacaa yaanteese markaasuu kabadhe yamin kabadhe war kabadhahana muxuu yahay yaantee abbaas aabbaha magacii baan ku yidho aabbihiina kiristan buu ku sheegay awowgii buu ku sheegay ismaaciil waa gaalashawadii uu dadkii gaalada ee waddanka soo maray ay gaaleeyeen weeyaan ayuu aabbihii ahaa markaasuu yidhi horay anu islaam baan ahaan jiray buuhi ajdaadaydu islaam bay ahaayeen buuhi waa la bedelay laakiin adiga maxaa lagu bedeli waayey waxaad ogaataa adiga dadkaad ka soo jeedaa culummo ahayda ogow
علوم كسو جدنا إنكم عم كمية لنا علومات كسو جداس سومالي قلنا سومالي قص غير كستو سومالية تاريخ ذو الراعة واحد كورنا إنكم شيخ ما كسو جدنا أبا هريرة رضي الله عنه سقي ومسلم لكن هو يدي مددر بي مشرك هذا هيد مالين تي إسلام تي أيو كسو نغضي النبي سقو فرحسن عليه الصلاة والسلام أبشر يا رسول الله أبشر يا رسول الله دعاء ذي إلهي وأي يقبلوا إلهي ويدي وسوها دي يقولي يا رسول الله متكلا أي حد يقول دعاء شيء أبوك واحد دونيس أنيقا يهو يدي قف كستو مؤمنة نين كستو مؤمن إيمان له يقهويني كستو مؤمنة ذا إلهي نجعلي سينا إلهي نو يدي بكيدي مركابو النبي يقول اللهم هذا عبيدك بقول إله أدون كاغن ير يا أبا هريرة الليلة يهو يدي مؤمن كستا يا مؤمنات والبإله جعل يسيب رسولك يدي وما أبا هريرة يدي أنا إمام مغلوق مؤمن إيمان له إلا ويجعلنا يا بيولي ورما جعلين نرر بادية أيا مقاعد بصواك جوكسدني ودادا وكوعدنا أيو بعد يجيبوا دقيستي أبا هريرة كدحواي وريا وعدك أبا هريرة كجر وعد ما هنا هكذا كنتبه كجري سكيب باقي لقو يا شودات كي يا الله مركا فرائي وحي إلهي نقول جعلانا يا أقول ومحي الإيمان إيمانك مركا إنك كان هاي سنة مانتا وإيمان فطري واتكود على إيمانك لكن وحا كادما إيمان إلى مقعيس الاكتسابي إيمان الاكتسابي إيمان وحاجرة حدي الله برتو ولا ددالو ولا قشقة دينتا إيمانك وكبعيو برايو وحاو نبينا عليه الصلاة والسلام وكشكي قصص فربدا ولا ليرada ku saabsan quraankuna waa ka waramay quraanku wuxuu ka waramay asxaabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ilaahi ba sheegay dhalinyaro ay haayeen ba ilaahay dhalinyaro amanu bi rabbihim rabbigood bay rumeeyeen وزدناهم هدى با إلهي أنا كنا هنون بانو بيرين با إلهي هنون بانو زيادة ودن waxay ku noolaayeen ninka boqorka wadanka xukuma oo dadka ugu yeero inay dadku isaga caabudaan oo la oran jiray magaciisa Tuqyaanus marka iyagu ilaahay bay garteen dhalinyaradaas id qaamu faqaaluu rabbuna rabbus samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaahan laqad qulna idan shatata haa'ulaa'i qawmun ittakhaduu min dunihi aaliha lawlaa ya'tuuna calayhim bisultaanin bayyin faman adlamu mimman iftaraa cala allahi kadiba dadkii kale oo dhan ee wadanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka boqorka caabudayaan ilaahu haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen may kan waa bashar markaas boqorkii baa loo sheegay lagu yiri wadanka waxa kugula nool dhalinyar maaragtaan ilaahay rabbinimadaada inkiraysa markaa uu ciidan u soo diray markaa dhalinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaan diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imma in intoo iyaga sidii u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada iyaga ba ka sheekayo yiri haddayna qabtaan oo ciidanka uu boqorku noo soo diray ayna haleelaan oo ay gacanta nagu dhigaan laba mid bay nagu sameyn karaan imma inay milladooda gaalnimada dib noogu celiyaan imma maaragtaan inay dhagaxay nagu dilaan marka waxay fadleen inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintooda iyo iimaankooda islaamnimadooda ay u xafidaan inay aabayaashooda iyo hooyooyinkooda iyo ahladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan
وماشي علماء ليهين دين هذا إسلام كماشي دعوة عيسى وين تكتكتا صاحب حن أو إيمان كاجي دين هذا دعوة عيا وين صاحب تنمدي سوين تجويسا المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل بنبي قول عليه الصلاة والسلام طفو صاحب كدين تأو قبا آيات دين أديك نكون نقنيسه أني ولو نك الله صاحبه سيسكئك بنبي قول عليه الصلاة والسلام ومجتمع لأن النيرة ده واحد دور بدين ولي وحال الشيء وكتبتك قرن عيال الصبولة ما هين ودتكوك فقراء ما هين بل waxay ka soo jeedeen reero wada aqniya iyo xoolo ay ka soo jeedeen oo maal qabeena ma la fahmay Allah ina fahamsiyo dadna waxay door bideen marka wadanka dhanba inay iskaga tagaan markaas ay waliba waxay baxeen baa la yiri xilligan oo kale magaalada ka baxeen xilliyadan oo kale mid kam maqnaa markay tashanayeen oo xoolihiisa marka soo daajinaya oo aygiisina uu maaragtaan uu la socdo kiibay u yimaadeen waa u sheegeen waxay yiraahdeen anaka wadanka waan ka tageynaa waa ka soconaa oo maxaad uga socotaan waxay yiraahdeen diin iimaanka iyaga ayaa qaaliya iimaanka qaaliya aaminaada ilaahay aan aaminay baa wax walba nooga qaalisano wadanka dhan waan huraynaa laakiin iimaanka iyaga islaamnimadeeda cid la dhigi meena bay ku yiraahdeen dalka waa diinta waa mid kay doorteen يا دين تي دورتين دلكو هابا بايداد هكا تغنا دلكيغا ددكيغا هان وينو لكن اسلام نمدا الهي نغو غلدايسيين ان سيغن بايدادين عجيب دنا markaasay kiina uu raacay marka aygii marka isaga la socday ariga la ilaalinayay ayaa damcay marka inuu raaco markaasay ku yiraahdeen aygaagan uu na sheegay naga reeb markaasay yiri waayahay reeba dhagax bay marka harraa kala joogsadeen baa leeyay luqadii marka ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yiri ilaaha aad caabudaan aad rumayseen umman aniguna uu qaana inuu yahay rabbus samaawaati wal ardi maxaa seekeen reebaysan iska kee dhaafaan raaci buu ku yiri ay galabta af Soomaaliya golaha la ka warrama sidee noqon lahayd magaalada Gaarisa واسك دايان marka aygi markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinayaa raadkooga lagu taagan yahay waagi markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa bariga markuu dhawaaday ayay arkeen marka kahf arkeen kahfku wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan marka bay dhaadeen halkan hangallo maanta oo dhan halka han oolo عاو عداد فيد كقلبت مركز عداد أي دعضو ودولكم مذوبادنا هنسيس عنو لما لين هدي لنا أدان سعنو ولا نسو أركي مركز يساعدن لا حلي أردن وحي كجرا صعد بكجرا سفر ويدالين ويساعدن مركز عصر قابل مركز سواكعين أي إسرادين مركز سدن كم سعون كرنو سفر كلام قال كرناه وانقاجونا وان هرادسنahay cuntaan u baahanahay raashine balni walaw jeebadaada wixii lacag ku jirtay intood soo saarto ninka inoogu maaragtaanay inoogu socod fiican inoogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tan oo nagama fogahay inoogu noqdo dadna raashinaha inoo soo gado hadii laakiin la garto oo la qabta isaga yuuna soo sheegina isaga kaliya dhibaatada ha ku ekaato ku soo leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadna markaasay waxay bilaabeen marka kiiba magaaladii galay raashinkii buu soo iibiyay markuu lacagtii dhiibisidi ayaa lacagtii la fiiriyo sida loo eegay ninkii maqaayada ama dukaanka lahaa baa ku yiri lacagta hakeed ka keento wuxuu jeebadeedan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin markaa buu adigu xageed ka timido aniguna meel aan dheerayno dhow baan ka imid buu yiri lacagtaada iga qaado alaabtan ay sii markaasuu ku celiyay lacagtan halkeed ka keentay lacagta aniga wato jeebadeedan ka soo saaray
oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblaayaan ka imid doomaba dheeri meeshaan ka imidee meel dhow baan ka imidee lacagta iga qaado baaqiga ii soo celi dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa loo ninkan lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaasaa yarkeera u naxay marka harraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin anagu dad muslimiin aan nahaa la yidhi oo dadka ma dhibno waxaan la yaabanahay lacagtan aad wadatee leedahay waxay kaga gada waxaa laga joogaa xilligay waddankan ay ka shaqaynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yidhi meeqa sano 309 sannadood waa 3 qarni maxaa tihiin muslimiin ويا مسلمين يا آمنسنتين الله بقركي مي بقر كواما نقول ما يسانك ما بقرنا إنما ما سوق قارنا وان مقلم ويا هذا هالكات كتير مدة أنا كنت نير بانا هين بيودي بقر كابان كبح سناي هبين دم بنقوريني واجي مركو بريو عياد وعصاب حدنا جود بان قال له جود كيف بدنا يرتي يقول سوقين هذا وحنو بلنا عاونا سفر كلاينا بلونه صيب حصلنا وعلى الوالور لادهين صدح قرني بأدونك السعودي والله سوق هذا كيرا بقر كي وضنك حكومة مسلم كالله كاني وحالنا بقر كاسي بقر داعية بوها وضدك إلهي حقي سوقية ده مركز دد واحد جري وضل كيس الجوجو أو دمشق إن بعث الله صبح دونه إن انتولى دنتو خلقك الله صو ساري دونه إن كرسم بجري مركز دليل بو مركز هلا مركز صريحة oo marxaati ma doonta boqorkii iyo waxa soo raacay iyo ciidankii iyo madaxdii iyo yarkii waxa dhalinyaradii nooge markaa buu hadii aan hadda iniko ila socdo aan ka kor dago way iga naxayaano in la soo qabtoon iyakana aan soo sheegay bay moodayaane aniga horta u tagayee iniko ii kaadiyo buu yiri waana ka dhaadhicinaya mowduucu siduu yahay ardul waaqic aanu sheegaya in caalamku socday oo noloshoodii iyo kana ilaahay joojiyay nolosha ayahay Allah baadna may cunin biyana may cabin tintoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin awoodoodii ismay bedelin maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin yaa ilaaliye markaa yaa ilaaliye yaa arsaaqayay yaa baahidooda daboolayay ayaa nolosha ku deeqay biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaada oran karnaa quraankan ilaahay ku sheegay laakiin asbaabtaasi waa asbaab walaakin ilaahay qofka bini aadanka inuu noolayo bila baad iyo bila biyo u kara ما الدليل على ذلك لغير أصحاب الكهف دليل صدح قرني بي جوجين عالم كا يكو بينا أنا نعبن بعدنا أنا نعنن وأنا سدود اسمي بدلين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قرآن كإلهي كو شيء قد كا waxay ku dhex nagaadeen baa Ilaahay yiri 300 iyo 9 sanadood bay ku nagaadeen baa Ilaahay yiri waana sidood isbay bedelinayeen innaka imika alxamdulillah iskuul baad dhiganaysaan waxbarashaad u timaadeen halkan waxa laga yaabaa waalidadiina qaarkood markay waaninayaan inay ku yiraahdaan aabo mid baa inamadiisa ku yiri aabo imtixaankii baa la marayaa soo maahan ha de bariiskiina u shaqaystay wuri bariiskanaad cuntaan waa kaygii ku yaro marka dacwada baxay oo iimaaniyaadkii oo aad aqeedada si fiican looga dhaadhiciyay buu dhalayo marka aabaha iga xanaaqine adiga iyo aniga iyo hooyo iyo kan iyo tan intuba he bariiska Ilaahay baan cunaa buu yiraahdo marka adiga tabliiqa ku walay buu وصل يا رسولك قصداس أصحاب الكهف وحبرشة ما ديدينه وحنو برت وانو باننا وحنو برتان وقفك مسلم كأقوياء ننو نقضو وانو باهنا هاي لكن هدات رادد ماددا أن دقنا يد تعليمتا أن دقنا يوم من وحكوني كره هدات رادد عقيدة دخل بكو جريس كصح
اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر الآيات في سورة الأعراف واكي إلهين وقور ربي لبدا ولا لا هايان آدم عليه السلام حواء مركي علوشيد إلما وقلبا waxaa la yidhi waxay dhalaysay laba mataanay dhalaysay wiil iyo gabadh bay dhalaysay wiilkan iyo gabadhan isla dhashay isma guursan karayaan dhalmada labaad ee ku xigtana wiil iyo gabadh bay dhalaysay labada dambe isla dhalatay mataanaha iyo labadii hore isla dhalatay ayaa hal mar keliya markay wada qaan gaadhaan isweydaar bay markaa ay u kala guursanayeen wiilkan gabadha ka dambe la dhalatay buu guursanayey gabadha wiilka dambena ka hore gabadha la dhalatay buu guursanayey lidaalika qaabiil baa la yidhi gabadh qurux badan baa la dhalatay isaga haabiilna tufool xun baa la dhalatay qaabiilta la dhalatay way qurux badnayd haabiilta la dhalatayna ma qurux badnayn sidaa inaan u dhignaa fiican soo ma markaasa qaabiil markaa uu diido wuxuu yidhi markay afartoodii wada qaan gaadheen waa sharcigii nebi aadam calayhi salaam uu lahaa weeyaan leanna dadkaa tarmaaya markaas oo bini aadamka arlada ilaahay ku abuurayu ku tarmaayey oo nebi aadam baa la yidhi muusan dhimanin ilaa uu arko ubadkii uu dhalay iyo ubadkay sii dhaleen 40,000 markay gaadheen buu dhintay baa la yidhi qaabiil baa lagu yidhi haabiil mataantiisaad guursanaysaa haabiilna mataantaaduu guursanayaa markaasuu yidhi may ta aniga ila dhalatay baa qurux badanoo anu tayda bixini maayo taydaan guursanayaa buu yidhi soo xasad maaha waa xasad haabiil nasiibkaa siiyey gabadha quruxda badan leh isagana tan maaragtaane quruxda badan aan lahayn haabiil la dhalatay nasiibkaa siiyey inuu ku qanca yahay laakiin kumuu qancin isagu markaa dee markaasaa la sharcigeenni maaha mar i bu yidhi anu waa guursanayaa buu yidhi ta ila dhalatay quruxda badanna lehed taa haabiil la dhalatay isagoo iska qaato markaasaa la yidhi ma dhici karayso haddana waxaa la yidhi bal waaye qurbaan la baxa qurbaan waa maxay sadaqad la baxa ka qurbaankiisa ilaahay ka aqbalo ayaa markaa la siinayaa gabadha quruxda badan leh waxaa la yidhi haabiil xoolo dhaqatu ahaa marka neef shilis buu soo qaado halkaasuu dhigay baa la yidhi beriga dad sadaqad la siiyo masaakiina ma jiraynin naar baa samada intay ka timaada baa la yidhi deedna sadaqada la aqbalay naartaada gubaysoo baabi'inaysay qaabiilna wuxuu ahaa nin beero qodaal oo dhulka ayuu beeran jiray zaraca ayuu beeran jiray isaguna maaragtaane kamiyo maaragtaane sawiiqa ayuu halkaa dhigay maaragtaane bur iyo shaciir iyo wax laysku geegeeyey waxaa la yidhi sadaqadii haabiil uu la baxay ayaa laga aqbalay baa la yidhi ilaa haabiil isagu taacad buu ku socdaa taacad oo wuxuu leeyahay dee ani nasiibkaygii taa walaalkay la dhalatay baa ilaahay isiiyey quruxda badan leh hala ii dhiso markaasuu ku dooday soo maaha sadaqaday la baxeenna kii taqwada lahaa ee mukhliska ahaa ee sharciga ku dhaqmayo ilaahay ka cabsanayey sadaqadiisii baa laga aqbalay qaabiilna sadaqadiisii waa laga aqbali waayey markaasuu yidhi sidee hadda lagaaga aqbalaa haddana bal u fiirso waa xasadkii unbaa socday markaasuu yidhi inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin taqwada ilaahay dadka mutaqiinta unba wax ka aqbalaa de inamaa in kale maahe ilaahay muu ka aqbalaa cid kale hadduu cid ka aqbalaya camal wanaagsan dadka alla ka cabsiga leh ilaahay ka aqbala camalka wanaagsan inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin markaasuu yihi de waan ku dili adigaaga dhaba waa ku dili markaasuu yihi haddaad adigu gacanta aad ii taagto oo gacantaada aad ii soo fidisid anu gacan kuu qaadi maayo buuhi waayo ilaahay baan anigu ka baqayaa buu yihi xasadkii wuxuu keenay inuu markii dambe walaalkiisii uu dhalay uu ku dhagaroobo dhagar qof keliya ku taagan oo ku joogsatay ma aha bal waxa adduunka bini aadan xaqdarro lagu dilayo oo dhan qaabiil maadaamuu dhiiggii u horreeyay adduunka dusheeda uu xaqdarro ku daadiyey ismi buu ku leeyahay waxa adduunka bini aadanka xaqdarro lagu dilo o dhan min ajli dalika katabna calى bani israa'iila anahu man qatla nafsa bgayri nafsi aw fasaadi fi اlardi fakaأnama qatla الnaasa jamiica wman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiica ilى aakhir اlaaya ilaahay waa ka inoogu sheegay qur'aanka ninkaasi qaabiil
وحلي واحد بني آدم حق ضراء الدون كان لابد الأردن وعلى ذنب قاسي سقنا نصيب كل إياه لا السجا السني نف بني آدم حق ضراء لابد له ذنب أنا محو كذا شيء إنه قتل لي ما دو حسد كعب علي حسد كنا معنيه سمك إلا معناه ومحي والنعمة ولا الكاو كسيي أو أركتا أو تأذيك إلى هاي كسيي وأد أركي ويدا أو لسان الحال كان أي هاي معناه هيبو إله أبدون كان النعمة ومقل من حافظيسي ذنب يقول لك يا مركع والذنب وين ويا لذلك وارضى بما قسم الله لك تكون ابن الناس من النبي يقول أرزاقك أنت إلهي أذيك وكو قدروا كسيي كو قنع النبي يقول عليه الصلاة والسلام وعد نقول صدقك انك وقني سبب نقوليه نعمه انت ادوق هيستان لا ايغايه انت ددك كلا هيستان لو ما فيرسدو هذا نعمه اديق اد هيستو اد ايغي ويدو او ددك كلا انت هيستان indhaha aad ku taagtid waxaad noqonaysaa marka shaakir noqoni meeside waxaad noqonaysaa min nicmadii ilaahay uu siiyay qariyay oo daboolay baad noqonaysaa dadna marka dambana xasadka ku qaalib noqonaya xaasidkuna marka u dambaysa sifaadka uu qaabil ku dambeeyay ayuu marka dambe ku dambeeyaa kibirku baa leeyahay gaalnimadu qofka u horseeda xasadkuna dhagartu qofka marka dambe qofka u horseeda wadanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo saajiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin hinduus oo gaal oo mushrika oo wadanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xiriir ba ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas marka intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka marka la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eegaa badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahayn oo wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisii baa marka inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo
saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaasi maskaxdeeda ma galaysay tiri war kala keen fikirta ninkii muslimkii bay telefonkiisa qabsatay way la hadashay waxay tiri bari tole inaan ku arkaan doonaya waayo waa inantii odayga caynkaas ee uu dhalay weeyaan maanta ku timid ee aabiheed la socotay ii kale balbo marka ku martay qaaday markay u timid wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halkaaba gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyay adiga mahram badita mahram imatid mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii diin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheeg Allah bana aaminsanah la tudrikuhu al-absar wa huwa tudriku al-absar cirka abuure dhuka abuure marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalid oo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri quraysh adeer anu kalmad baan la rabaa inay mar kaliya yiraahdaan hadday kalmada ay yiraahdaan carab oo dhan madax bay u noqonayaan carab ajam oo dhan jizyada ka qaadayaan kalmadaasi waa maxay wala ilaaha illa allah aba jahl basaraka wuxuu yiri aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab 360 ilaahun caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli karile maxamed ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda war inaga kiciye buuri meesha ilaahayadeena cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu kaleeyahay diintiisan ku daynayo ka hadhaya ma inay naga mariyo bay dhaadeen markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo hadhay markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hadal xunba kuma oran waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kelmadda mar ii dhabuuri qiyaamaha ku marxaati furee hal marun adigu ii dhabuuri kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigaya adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu isku taagay alayhi salatu wassalaam kolkuu u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiya Abu Jahl ya uga soo horeey Abu Jahl baa uga soo horeey siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer kalimatan uhaaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah maalinka qiyaamaha ku marxaati fure oo han ku shafaacad qaade hal marun kalmada aniga maqashigu ka yiri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam markaasuu eegay Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa ku yiri atarghabu an millati Abd al-Muttalib ya Abu Talib ma millati Abd al-Muttalib baad maanta ka weecanaysa diintii Abu Yashin intood ka tagto diintan cusub ee Muhammad uu la yimiday miyaad rumaynaysaa oo raacaysaa oo aamusa hadana nabiga soo yarjiidiyay sallallahu alayhi wasallam adeer kalmada mar labaad igu celi buu keenay mar labaad hadana waa aamusa hadana Abu Jahl baa soo jeediyay markii uu dambeysay Abu Talib wuxuu yiri ala millati Abd al-Muttalib baan ku dhintay Muhammad oo iska keedaa buu keenay إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت
kad adigu aad jeclaatid baa nabiga lagu yidhi ma hadayn karaysid dalaalaad adigu leedahay ad-dalaala hidaayadaad adigu leedahay waxa weeyaan inaad dadka khayrka aad ugu yeedhid inaad kelmadda u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin quluubtooda annaka hayna baa ilaahay leeyahay kaan doona qalbigiisa annaka nuurka iyo hidaayadda qalbigiisa gelinayna Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxay ku dhici jiray ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay gaajan la jiifay buu yiri Umar baa yimiday markaas Umar ku yiri aayadda Quraanka halka aayadda Quraanka ay ku soo degtay Umarow markaas Abu Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayadda Quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahayn waxa iga ahayd Umar wajigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wajigaaga ku taalay intuu eego ha garto oo ha ku yiraahdo Abu Hurayra gaaja ku haysay kaale ila soo xaraado ila soo cashay imuu fahmin aayaddii buu iga jawaabay buu yiri halka ku soo degtay haddana Abu Bakar baa yimid Abu Bakar wadna bal aayadda iga jawaab halkay ku soo degtay Abu Bakarna ima garan oo ima fahmin aayaddii buu iga jawaabay buu yiri waa Abu Hurayra baahi baa haysa saddex maalmood iyo saddex habeen afkiisa cunto ma gelin haddana Abi Bakar iyo Umar inuu baahi u sheegtay ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtari moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegay mashruuc gaalow innakaba naguma socdo xanuunkaas naguma socdo cuquuba meel kale ku socota haddaad u yeerato ka waran adigu halkii baryihii hore dadku oran jireen balaayo markay maqlaan meelheblaayo balaayo ku dhacday ayaa laga alla bari jiro la oran jiray balaayo bayd imikana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo bayd xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muuminku balaayo ma sheego muuminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyay ayaa iga qabta ayaa ilaahay ka qaban war ma hayad baa ilaahay ka qaban bal sheeg muuminku balaayada ma sheego Abu Hurayra gaajadiisii Umar uma sheegin Abu Bakarna uma sheegin oo qarsanayay laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ay wajigaaga bal kolkay eegaan ha ka dareemaan oo ha ku yiraahdaan Abu Hurayra marka hore ahlu sufaada hayde oo magaalada Madiina qareen iyo qarabo kuma lahayne waad gaajootay in mari ha ku yiraahdaan iyakiina ma fahmin walaakiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam markuu nabigu igu soo baxayba halkaas uu nabigu ka fahmay markaas halka uu ka fahmay ya Abu Hurayra kala caawaniga ila soo cashay buu ka yiri قال إلى سوء عشاء كوب عانو النبي قوي مدرير كيسي كوب عانا هيا لا كوب عانا كويا لنبي الله يا أبا هريرة مسكيت يكون نقو أهل الصفية ودن نقو غير عاو عانا هنا العباني وكوب عانا أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أورن كرو لكن يدان كيريبو يري كوب كان عاناها أدقوم بكوكو في عناية ميا لقول لي بقى حكوا عبادة ستة الله حبينا هل الصفونا والرجال قرني سيدي مسكيت كده جنايو أيك اللفت جوكم مع الميد الوحمة علن ده كل النبي بقول كويرو أي نادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عنها قاضي السيسي كوه الرجال الله سياه هم لكن النبي محمد هذا الكيس ما يورنين ويري أقل جمرك فريستان سيدي وكب ملايين يمشى ودعبي يا أبا هريرة النبي يقول كوك عنها قاض ninka ugu horeeyana u dhiib hakana qaadin bur ilaa isagu ku soo celiyo mooyaane koob xana raga loo yeerana waa ragee ahlu sufa
kii horeeya markaas u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii kii 90-70 nin iska dhe markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hureyra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadhi fadhiiso adu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meel ee caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salaatu wasalaam ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي نوح عليه الصلاة والسلام أهل الصفه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنك كمدة أيوها مساجد النبي مؤخرة دي سدا بأيود دقنا أهل الصفه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين انهلجر عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiru nabigu siisiiya laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahlu sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiica labadan qabso war fulaan labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa buu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadihi ya Abu Hurayra xabadda timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu hooyadii baan u geenayaa buu kay markaa buu nabigu yiri hooyadaana annaka kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yidhi Abu Hurayra waninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiista aan inta badan aan sheegayno oo dhan isagaa wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay جواهرت النبي محمد أفكيس كسو بعيسو مدة أوريبي إلى قيامة ربيعة مركا رقاسو كمدها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحويري إسقا كشاكين يا هبينكي مرقو نبي صوكع عليه الصلاة والسلام إلا أقلدو مركا الزمن قاسي أقلد بحدو بسقل اللقو حاجودو يتواليد ملهين بنانك مقالة مدينة اللو بحجري magaalada Madiinana bahala iyo baholo badan bay lahayd marka buu yiri Rabiica nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu marka cadaygiisa iyo biyaha weesadan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa cadi ma qabowgeega markaasaan u keenay nabiga biyihii weesadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga la socdaa buu dhawaan way ilaalinayaan nabiga moogtay sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya ya Rabiica salni ya Rabiica waxaad doonta caawa sheego biyaale hadalka محمد عليه الصلاة والسلام والنبي دعادي مستجابة أي تهي والنبي أود ويا شيء جيد ويا جيد بويا جيد والنبي إلهي أوسيي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إله والكا كقاد إلهي بورها وكقاد إلها مقالة مكبر لي والنبي ربيعو شجعه واحد دونس واسكن نقول إيكاد النبي الله هل قابو فريستي نكن ونبي محمد كله يهي باهدا دعاوة إيش وانن مقالة المدينة أقل كمله جاك كمله قرابة كمله
qareen kuma leh meel wax ka cuna ma haysto hadiyada nabiga loo keena ayuu nabigu ahlu sufaan oo wax ka siiya maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira haday helaan bay ku ay abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyay uu ku leeyahay ya rabiica waxa doonta caawa sheego salli ishaga caawa waxa doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yiri as'aluka murafaqataka fil janna ya rasuul allah wax kale oo sheeganaya ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay inta ii weydiibu kay meel baa u cadeeyay inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko inta ilaahay ii weydiiyo